cutubyo ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa maanta waxay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmada Beled Xaawo. wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada ayaa lagu arkayay ciidamada NISA oo hubinaya gaadiidka kala duwan ee degmada imaanaya iyo kuwa ka baxaya. ciidamada nabad sugidda ayaa dhinaca kala waday howlgallo lagula dagaalamayay qaadka sida sharci darrada uga soo gudbo xuduudda u dhaxaysa Mandheera iyo Beled Xaawo. howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dabayaaqadii bidihii la soo dhaafay si toos ah ula wareegeen xaqiijinta ammaanka degmooyinka Daawo ee gobolka Gado. Warsame Xaaji Faarax, Dalka TV, degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado.